kani waa mashiinka dhimashada qof waliba oo gacantii saar halkaani wuxuu ku ogaanayaa qaabku dhiman lahaa gabadhaani dhiigga iska qaadaysa waxay sugaysaa natiijada waxay noqonaysaa inuu dilo qof oday ah balse ayadu waxay fahmaysaa inay ku dhimanayso weyn farxaysa meesha way ka cararaysaa balse nasiib xumo ayadu si ordaysa oo isdhaysa laamiga sii jar ayaa waxaa dilaya nin oday ah gabadhii si lama filaan ay nafteeda ku waayaysa odaygii waa uu naxaya sidoo kale wiilkaani ayaa istijaabinaya waxaana u soo baxaysa inay dilayso gabar qurux badan balse wiilka ayaa waxay noqonaysaa layaab wuuna soo baxay wuxuuna imaanaya xeebta waxaana imaanaysaa gabadhaani kadib way la hadlaysaa waxayna ku leedahay yusuf maxaa kugu dhacay waxayna soo dhiibaysaa xariifka oo macneynaya kadib wuxuu ku leeyahay tag gabadhii ayaa wiilka la yaabaysa iyadoo dhol cadaynaysa wiliba waxayna ku leedahay midkaani maxaa ka khaldan xariifkiin mashiinka soo tijaabiyay oo hore ayuu u xanaaqsanaa kadib ayuu ku leeyahay iga tag iga aan balse nasiib wanaag isagoo isleh qoftaani iska raaligeli ayaa mar waxaa la boodaysa xariifkii gabar kale wiilkan isagana sidaas ay naftiisa ku waayaya gabadhii ay arintu waxay la noqonaysaa layaabi ama kaag mar kale haddana waxaa istijaabinaya xariifkan isagana natiijadiisa sida ay noqonaysaa xariifkii uu soo baxaya wuxuu imaanaya meel lagu ciyaaro cricket isagoo arintii aan aaminsanin oo la yaaban meel iska taagan ayaa hal mar waxaa la kacaya haad xariifkana sida ayuuba ku dhimanaya dadkii meesha taagnaa ayagana way naxayaan wayna la yaabanayaan sidoo kale mar kale waxaa istijaabinaysa gabadhan ayadan waxaa soo baxaysa waqtiga safarka balse ayada waxay moodaa waqtiga in nolosheeda kalimanba in ay safrayso wayna kadib gabadhii mid ka mid ah tiimkeeda iyo ayada ayaa isku doodaya waxayna kusoo tuuraysaa saacadda safarka gabadhii sidaas ayaa ayadana ku dhimanaysa oo kooma ay ku galaysa waxa aan macquulkayna waxay tahay gabadhii silam filaana hal mar ay waxay ku imaanaysaa dagaalka labaad ee adduunka weliba ayadoo ka qayb qaadanaysa dagaalkaasi codteeda oo keliya haddana mar kale odaygani cabtooga ayaa istijaabinaya balse natiijadiisa ayaa waxay noqonaysaa isagoo jooga gurigiisa ama duurka inuu dili doono biir buuti ama baanda saa u taqaan xariifkani wuxuu iska jecel yahay biirka caagda gurigiisa taa waxaa ugu sawiran biirka isagoo soo qabsaday caaga marabka haddana iska dhigay ayaa hal mar waxa uu imaanaysa xaaskiisa weliba si lama filaan ah wuuna la yaabaya kadib ay weydiinaysaa sababta sidana ugu naxday maxay tahay aniga oo kaliya waa kadib xariifkii xasuus yar ayuu galaya kadib wuxuu ku leeyahay may waxaas ma jiraan waa caadi kadib ayagoo soo wada baxay oo safar soo wada aaday welibana duurka ka dhisanaya tendhooyin ama guriyo xariifkii kadib meeshii uu dhistay ayuu seexanaya isagoo gacantiisa ku haysta misaartan waa bufulay waxaar kadib uu soo naxaya oo isagoo banaanka iska firfiirinaya oo isleh yaa ku dili doona isagoo iska faraxsan oo dhoola cadeynaya ayuu dibadda soo baxaya oo banaanka ayuu istaagaya kadib ayuu wuxuu ogaanayaa meeshan inay amni tahay misaarta isku tuuraya wuuna soo baxaya wuxuu imaanaya xaafadiisa balse ninkani ma oga caag gadaashiisa yaala ama caaga qashinka inuu ku jiro biirka ayaa la dilaya ninkii sidaas ayuuna ku dhimanaya